golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya ayaa waxay ansixiyeen inuu Dr. Abiy Ahmed noqdo ra'iisul wasaaraha qaranka kadib markii uu golaha xisbiga EPRDF u doortay inuu Dr. Abiy Ahmed uu noqdo gudoomiyaha xisbiga EPRDF waxayna kulankan ay yeesheen golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya ay ku ansixiyeen inuu Dr. Abiy Ahmed noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya kadib markii uu madaxa xarunta dhexe ee EPRDF mudane Shafarraw Shikute uu soo dhigay taariikh nololeedkiisii oo dhameystiran shaqooyinkii kala duwanaa ee uu soo qabtay iyo waliba sida ku go'naanshiyaha leh ee golaha xisbiga EPRDF ugu doorteen inuu Dr. Abiy Ahmed noqdo gudoomiyaha xisbiga EPRDF waxauna madaxa xarunta dhexe ee EPRDF mudane Shafarraw Shikute uu ka codsaday golaha wakiilada shacabka inay Dr. Abiy Ahmed u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya intaasi kadibna afayeenka baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya mudane Abadulla Gamadha oo kulankan ay yeesheen golaha wakiilada shacabku shirgudoominayay ayaa golaha wakiilada shacabka ee qaranka ka codsaday in ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ay shacabku muujiyaan በምክር ቤቱ አሰራርና አባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የቀረበውን እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክር ቤቱ በጭብጨባ እንዲያጸድቅልኝ እጠይቃለሁ። hanaanka shaqo ee golaha wakiilada shacabka qodobkiisa 110 faraqiisa saddexaad sida ku cad ee loo soo dhigay ra'iisul wasaaraha cusub waxaan ka codsanayaa golaha sharafta leh inay shacab ku ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ምክር ቤቱ በጭብጨባ እንዲያጸድቅልኝ እጠይቃለሁ። intaasi kadibna madaxweynaha maxkamadda guud mudane Daniel Malaku ayaa golaha wakiilada shacabka hortooda ku dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሰየም ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። anigoo Dr. Abiy Ahmed waxaan maanta anigoo hortaagan golaha wakiilada shacabka ee idmaday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalka Itoobiya waxa aan ballan qaadayaa anigoo u hoggaansan nidaamka dastuurka in aan ka soo baxayo xilka iyo waajibaadka iga saaran dalka iyo dadkiisaba isla markaasina aan ugu adeegi doono si cadcadaan leh oo ay ka go'naanshiyo ku dheehan tahay iyo sidoo kale aniga oo solka dhiganaya nidaamka dastuuriga ah in aan shaqadayda gudan doono ayaan ballan qaadaya sharciga la mafsad qaal gabadho intaasi kadibna ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Haile Mariam Desalegn ayaa xilka ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyadoo ra'iisul wasaarihii hore iyo ra'iisul wasaaraha cusubna si farxad leh iskugu gacan qaadeen oo ay laabta isa saareen haddaba ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo khudbad xalgal ah ka soo jeediyay golaha wakiilada shacabka hortooda ayaa ballan qaaday inuu sii adkeyn doono nidaamka federaalismka ah wada noolaanshaha iyo isqadarinta iyo waliba sii xoojinta kobaca dhaqaale ee uu dalkeena Itoobiya ku tallaabsaday sanadihii ugu dambeeyay ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ የተዋደደና የተዋሃደ ነው አማራው በካራማራ ለሀገሩ ሉዓላዊነት ተሰውቶ የካራማራ
አፈር ሆኖ ቀርቷል። ትግራዋይ በመተማ ከሀገሬ በፊት አንገቴን ውሰዱ ብሎ የመተማ አፈር ሆኗል። ኦሮሞው በአድዋ ተራሮች ላይ ስለ ሀገሩ ደረቱን ሰጥቶ የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከአድዋ አፈር ተቀላቅሏል። ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ወላይታው፣ ጋምቤላው፣ ጉራጌው፣ አፋሩ፣ ስልጤው፣ ከምባታው፣ ሀዲያው፣ ሐረሪው እና ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ በባድመ ከሀገሬ በፊት እኔም ብለው እንደወደቁ ከባድመ አፈር ተዋህደዋል። አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች፣ ስናልፍ አፈር፣ ስናልፍ ሀገር እንሆናለን። የየትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። midnimadeennu si ayna u qaybsamin waxaa sidii silsilada isugu xirxiray isla markaasna si ayna u kala furan u mideeyay waa isjacaylka iyo isku duubnida ka dhaxaysa qoomiyadaha. amxaraduna si ay jiritaanka dalka u ilaaliyaan ayay naftoodii u horeen oo ay karaamardha ku waayeen waxa uuna dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba ka mid noqday ciidda karaamardha. qoomiyadda Tigreeguna waxa ay halgankaasi oo kale ku gashay goobta lagu magacaabo Matama, waxa ayna qoorta u halis kasta oo jirtay si ay jiritaanka dalka u ilaaliyaan. kadibna halkaasi ayay dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba ku waayeen waxa ayna ka mid noqdeen ciidda Matama. qoomiyadda Oromaduna waxa ay laabta u dhigatay halgankii dheeraa ee ka dhacay buuraha waaweyn ee Arwa, kadibna naftoodii ayay horeen si ay qadiyadda iyo jiritaanka dalka u difaacaan. ugu dambeyntiina waxa uu dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba ka mid noqday ciidda buuraha waaweyn ee Arwa. Soomaalida, Sidaamada, Bishaanguulka, Waleetada, Gambeelaaga, Uraagada, Aanfarta, Sildeega, Kambaataaga, Hadiyaw, Hererida iyo qoomiyadaha kale ee aadka u tira badanina waxa ay qoorta u dhigteen marxaladii buudhame. waxa ayna go'aansadeen in ay dalka hortii dhintaan oo ay jiritaanka dalka ilaaliyaan, waxayna dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba ku waayeen goobtaasi. kadibna waxa uu dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba ka mid noqday ciidda Baadume. mid ka mid ah aabbayaasheena Etoobiyana waxa uu yidhi innagu marka aynu nool nahay waxaynu nahay dad, markaynu ka gudubnana waxaynu nahay waddan. muwaadin kasta oo Etoobiyaan ahna dhiiggiisa iyo dheecaankiisaba waxa laga helayaa meel kasta oo dalka Etoobiya ka mid ah. sidaas darteed dadkeena Etoobiyaankiihi markaynu nool nahay waxaynu nahay Etoobiyaan, markaynu dhimanana waxaynu noqonaynaa Etoobiyaan. ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ka hadlay howlaha amniga iyo xasilinta dalka. waxa uu sheegay in kala dambeyntii iyo ismaqalkii uu dalku lahaa la soo celin doono. ኢትዮጵያ የጋራችን የኛ የሁላችን መሆኗን ተገንዝበን የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት ሁላችንም የሚያሳትፍ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባቱን ትግል አጠናክረን እንቀጥላለን። Itoobiyaanimadu waa mid inaga dhaxaysa oo aynu wadaagno, waxaana loo baahan yahay in aynu garwaaqsanno inay Itoobiyaanimaduna tahay midaasi aan la kala lahayn ee ay cid waliba codkeeda ka dhiibanayso, isla markaasina cod kastaaba ay ka qayb qaadanayso. marka waa in aynu har iyo habeenba sii wadno halganka dimuqraadiyadeed oo aynaan joojinin. dimuqraadiyadda marka la kobcinayana waa inay dawladdu tixgeliso fikirrada ay bulshadu sida xorta ah u dhiibanayso, maxaa yeelay dimuqraadiyaddu kama timaado meel ka baxsan dhaqdhaqaaqyada nabadda ah ee bulshada iyo hormoodnimada dawladda. haddii aan arrintaa la hirgelinina horay u socod ma yeelanayso oo intay ballaadhato ma taabagelayso. sidaas darteed dawladdu waxa ay ka howlgelaysaa in uuna haba yaraatee wax hakadihi gelin dhaqdhaqaaqa nabadeed ee bulshada dalka. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale shaaciyay in loo baahan yahay in mudnaan gaara la siiyo hirgelinta sharciyeynta sharciga iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa. በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ውስጥ የሕግ የበላይነት መስፈን ይገባዋል። የሕግ የበላይነትን ለማስፈን በምናደርገው ትግል መርሳት የሌለብን ቁም ነገር ህዝባችን የሚፈልገው የሕግ መኖርን ብቻ ሳይሆን የፍትህ መረጋገጥንም ጭምር ነው።
nidaamka dimuqraadiyadeed ee uu dalkeennu ku dhaqmayo waxaa lagama maarmaan ah hirgelinta sarreynta sharciga. halgankaan u galayno sidii aan u hirgelin lahayn sarreynta sharciga ayaa waxaa habboon inaan la hilmaamin oo lagama maarmaan ah kasakoo rabitaanka shacabka ee hirgelinta sarreynta sharciga in sidoo kalena salka loo dhigo nidaam cadaaladeed. dalkeenna Itoobiya oo ah mid qani ah islamarkaana muwaadin walba oo shaqaysana uu ku hormari karo, meeshan ay ka baxdo in midba midka kale eego oo ay noqoto in midba midka kale uu u fikro. waxaana loo baahan yahay in annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan qaaliga ah ee uu wakhtiguna siiyey iyo awooddan ballaaran ee uu dalkeennu leeyahay inaan meesha ka saarno aragtida cidhiidhiwan. waxaana loo baahan yahay inaan ku dadaalno sidii si wada jir ah aan barwaaqo u gaadhi lahayn. waxa uu sidoo kalena ra'iisul wasaaruhu sheegay in dawladdu ay mudnaan siin doonto shaqo abuurka dhallinyarada, isagoo sidoo kalena tilmaamay in la sugi doono xuquuqda ay muwaadiniinta dalku u leeyihiin inay kolba goobta ay rabaan ay tagaan kana shaqaystaan. ያለ ወጣቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት አገር የትም ልትደርስ እንደማትችልም እንረዳለን። ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ ተስፋ የምታስቆርጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ። ka qaybgalka iyo ka faa'iidaysiga dhallinyarada ka sokow dalku inuuna meel gaadhi karin ayaan aaminsanahay. waxaanan halkan ka ballan qaadaya in dalkeena Itoobiya uu noqdo mid dhallinyarada u sallaxaya mustaqbal wanaagsan, balse uuna noqon mid dhallinyaradu ay ku rujo dhigayaan. waxaan sidoo kale ka shaqaynaynaa ka sokow shaqo abuurka dhallinyarada loo samaynayo in sidoo kalena la soo saaro dhallinyaro maalqabeenno ah. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sidoo kalena tilmaamay in dalkeena Itoobiya waqtiyada soo socdana uu sii adkeyn doono xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay wadamada kale. ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ የቀደምት ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት ሀገር ናት። dalkeena Itoobiya maadaama uu yahay muhandiska Pan-Africanismka iyo weliba aasaasaha iyo xarunta fadhiga midowga Afrika iyo weliba aasaasaha xarumo qadiimi ah ee heer caalami, islamarkaana door weyn ka ciyaara arrimaha heer caalami qaaraddan Afrika iyo weliba geeskanba. sida awgeedna istiraatiijiyadani ku salaysan iskaashiga wada faa'iidaysiga iyo sinaanta waan sii wadi doonaa annagoo sii xoojinayna guud ahaan walaalaheena wadamada qaaraddan Afrika iyo weliba gaar ahaan wadamada aan jaarka nahay. annagoo isgarabsanayna ayaan si wada jir ah ugu istaagayna xaalad walba. dawladda Eritreana isfaan la'aanta muddada dheer jirsatay ee naga dhaxaysa inay dhammaato ayaan danaynaynaa. Dr. Abiy Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha dalka ayaana dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabweynaha dalka ugu baaqay inay qayb waliba doorkeeda kaga aadan ka soo baxdo sidii dalka looga hirgelin lahaa dimuqraadiyad, horumar iyo nabadgelyo waarta.